السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtiin dhammaantiinba. ku soo dhawaada janaalkeena Fasoon. muuqaalkeenan waxaan ku kala dhigdhigi doonaa wax kasta oo ku saabsan Bitcoin, inagoo faahfaahin buuxda ka bixin doono. waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe inoo saarto, muuqaalkan inoo laag-garayso, lana sii wadaagtay saaxiibadaada. wixii tale iyo fikirana nagula wadaag qaybta faalada ama commentiska. muuqaalkeenan maanta waxaan ugu hadli doonaa dhowr mowduuc oo muhiim ah inaan ka ogaana Bitcoin. oo ugu horeyso, Bitcoin waxa ay tahay xilligii la aasaasay, qofkii aasaasay, cidda maamusho, Bitcoin minerska waxa ay yihiin, iyo iibkii ugu horeeyay ee Bitcoin. sidoo kale dhacdada u gaarka ah ee Bitcoin ay kaga duwan tahay lacagaha kale ee digitalka ama cryptocurrency-ga. marka koowaad, waxaa muhiim ah inaan wada ogaano Bitcoin waxa ay tahay. Bitcoin waa nooc ka mid ah lacagaha cryptocurrency-ga ama digital currency-ga. Bitcoin waxa ay la mid tahay lacagaha doolarka, yuurada iyo shilin Soomaaliga caadiga ah aynu isticmaalno. laakiin dhammaan lacagaha aan kuu soo sheegay oo aan saddexda kuu soo tiriyey waa lacago la taaban karo oo warqad ah, balse Bitcoin ma ahan lacag la taaban karo, waayo waa digital currency sida lacagaha kugu jiro saadkaaga, EVC Plus-kaaga iyo dahabkaaga oo kale ayay la mid tahay Bitcoin. dhammaan lacagaha EVC-ga, saadka iyo dahabka ma ahan lacag aan taaban karno, balse waa lacag wax ku iibsan karno. Bitcoin-na waxay la mid tahay lacagaha taleefankaaga kugu jiro oo kale. xilligii la aasaasay Bitcoin sanadii 2008 waxaa la diiwaan geliyey ama hawada internetka la soo geliyey domain name-kii ugu horeeyey ee ahaa bitcoin.org. sanadkii xigay bishii Janaayo 2009 ayaa la shaaciyey warbixintii ama nuqulkii ugu horeeyey ee ku saabsan ama looga hadlayay qaabka ay u shaqeyso Bitcoin ayaa la daawacay. marka xilligii la aasaasay ama xilligii soo ifbaxday Bitcoin waa 2009. yaa aasaasay Bitcoin? ma jirto xog saxan oo sheegayso shakhsiga ama kooxda aasaastay ama sameysay Bitcoin, balse waxaa jirto warbixin la daawacay sanadkii 2008 oo ciwaankeedu ahaa Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, oo lagu sharxayay sida ay u shaqeyso Bitcoin. ayaa lagu arkay magaca Satoshi Nakamoto. waa magaca keliya oo la ogyahay oo lagu arkay xogtaas. magacani ma kambaniya, ma koox isku tagtaa, ma shakhsi gaar ah, ilaa iyo hadda lama ogo. haddii aad rabti inaad xog badan oo ku saabsan sida ay Bitcoin u shaqeyso, qaybta description-ka ayaan kuu dhigayaa warbixintii ugu horeysay oo laga daawacay qaabkay u shaqeyso Bitcoin ee ahaa a peer-to-peer electronic cash system. waxaan kuu dhigayaa linkigeeda qaybta hoosaa kuu dhigi doonaa si faahfaahsan warbixintaas usii akhriso. cidda maamusho Bitcoin ama yaa maamulo Bitcoin? waxaa wad ognahay lacagaha waxaa maamulo dowladaha maamulo. ma jirto cid gaar ah oo maamusho Bitcoin iyo dhammaan lacagaha cryptocurrency-ga. haddii ahaan lahayd dowlad, bangi iyo financial institution, ma jirto koox maamusho ama hay-ad dowladeed oo maamusho Bitcoin. keliya Bitcoin waxaa maamulo koox kala duwan oo ku kala nool daafaha dunida, kuwaasoo loo yaqaano Bitcoin minerska. maxay yihiin Bitcoin minerska? Bitcoin minerska waa koox xalisa oo ka shaqeysa xalinta xujooyinka adag oo ku dhisan xisaabaadka. kooxdan laba arrimood ayaa dhacdo inta lagu guda jiro xalinta xujooyinka ku saleysan xisaabta, ama labada shay oo ay qabtaan kooxdan Bitcoin minerska. qodobka koowaad ay qabtaan waxaa loo yaqaanaa in ay sameeyaan lacago cusub ama ay soo daawacaan lacago cusub oo Bitcoin ah ay suuqa soo geliyaan, ama in ay hubiyaan ama ay caddeeyaan transactionada Bitcoinada laisku diraayo inay tahay mid saxan iyo mid aan saxsanayn. labadaas qodob ayay qabtaan Bitcoin minerskaas. muxuu ahaa iibkii ugu horeeyay ee Bitcoin? iibkii ugu horeeyay ee Bitcoin wuxuu ahaa 2 xabo biisa, iyadoo lagu iibsaday qiimo dhan 10,000 oo Bitcoin ah oo xilligaas u dhigantay lacag $40. ha yeeshee waqtigan ama waqti xaadirkan oo la joogo, hal 10,000 oo Bitcoin waxay u dhigantaa 700 oo milyan. ka waran 10,000 oo Bitcoin haddii ay xilligaas haysan lahayd, maanta waxaa haysan lahayd 700 oo milyan
oo doolarka Mareykanka ah. Kumuu ahaa ama qofkee ayaa ahaa qofkii ugu horeeyey ee Bitcoin wax ku iibsado? Celso Hayashi waa ninkii ugu horeeyey ee 2 xabo Visa ah ku iibsaday 10,000 oo Bitcoin ah, waana shakhsigii ugu horeeyey ee wax ku iibsaday Bitcoin. Waa ninka dunida ugu nasiibka xun, maxaa yeelay xilligan haddii 10,000 oo Bitcoin uu haysan lahaa, maanta wuxuu ka mid noqon lahaa dadka milyaneerada adduunka ah, balse nasiibkiisii calooshiisa ayay raacday oo 2 xabo Visa ayuu ku cunay. Maxaa ka taqaanaa ama maxay tahay dhacdooyinka u gaarka ee Bitcoin? Dhacdada ugu weyn ee Bitcoin waa Bitcoin Visa Day. Waa dhacdo caanka ah oo uu garanayo qof kasta oo xiiseeya ama maalgashtay cryptocurrency-ga. Dhacdadaasoo isu beddeshay dabaaldeg. Sanad walbo markii ay taariikhdu ku beegan tahay May 22-keedii, waxaa la xusaa dhacdadii ahayd ninkii 2 xabo Visa ku iibsaday 10,000 oo Bitcoin. Waana iibkii ugu horeeyey ee Bitcoin. Sababta loo xusaayo ma ahan in uu ahaa iibkii ugu horeeyey, waa qiimaha xilligaas la bixiyey oo maanta u dhiganto milaayiin dollar oo u dhiganto. That's why marka sababta dadka funny dabaaldeg funny uga dhigtaa waxay tahay qofkii xilligaas 2 xabo Visa oo 10,000 oo Bitcoin ku iibsaday, maanta hadduu haysan lahay milyaneer waa dhaafi lahay. Halkee laga helaa ama meeshee laga iibsadaa Bitcoin-ka? Waxaa jiro shabakado badan oo aad ka iibsan karto Bitcoin, balse waxaa kula wadaagayaa kuwa ugu fiican oo aan scammerska ahayn. Maxaa yeelay internetkan waxaa jira shirkado badan ama dadyo badan oo scammers ah. Scammerskanna waxay isticmaalayaan xogaha shirkadaha saxda ah iyagoo hadafkooda ah inay lacagtaadii cunaan. Marka si aad uga badbaadi scammerska, waxaan kula wadaagayaa kuwa ama website-yada ama shirkadaha laga iibsado Bitcoin-yada. Number 2 waxaa waa Binance-ga iyo Crypto.com iyo Coinbase. Waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad ka heshay oo xog badan oo kaa qarsooneed oo ku saabsan Bitcoin inaad wax ka ogaato. Waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaaid subscribe inoo saarto, muuqaalkan inoo like garayso, sidoo kale la wadaag saaxiibadaada kale. Mahadsanid. Waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkani. Intaa muuqaalka xiga kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.